maxaa kaa hortaagan inaad horumar samayso dabcan dad badan waxay isbeddel u samayn waayeen waxaa jira waxyaabo dib u celinaya oo mar kasta hortaagan kana hortaagan inay gaaraan horumar la taaban karo halkan hoose waxaan kuugu sheegi doonaa 11 waxyaabood oo u baahan inaad naftaada ka joojiso ama aad iska ilaalidaba mar waliba jooji inaad dayacdo salaada iyo guud ahaan cibaadada Alle maalin kasta 5 waqti waxaan maqalnaa u kaalaya guusha hayya cala al-falaax haddii aadan ka jawaabin isla markii 5 salaadood waqtigooda aadan ku tukan ma jirto waqti kale oo aad maareyn karto mar kastana qofka wuxuu ahaanayaa mashquul aan haddana waxba u qabsoomin 2 jooji inaad naftaada been u sheegto qiyaalina aad ku maaweeliso nolosheennu waxay hormartaa kaliya markaan fursadaha ka faa'iideysano fursadda ugu horeysa uguna daran aan qaadan karno waa inaan nafteena daacad u noqono 3 jooji inaad waqti ku lumiso asxaabta xunxun noloshu way gaaban tahay inaad waqti ku lumiso dad farxadda kaa qaada kala garo nooca saaxiibada aad leedahay saaxiibka xun kaliya gadaal unbuu kuu dhigaa 4 jooji inaad ka cararto dhibaatada wajah dhibaatada ilaa aad ka xalliso ma aha wax sahlan mana jiro qof adduunka dhib la'aan ah xaqiiqdii waxaana soo maraya murugooyin kadeed kufid iyo dhaawac nolosha ayaa sidaas ah waxaa la rabaa inaad wajahdo aad aqbasho kana feejignaato aadna xalliso tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto 5 jooji inaad ceebaha dadka kala raadiso oo aad baarbaarto kadibna aad samayso cambaareen caay iyo cilad sheegid joogto ah xaqiiqdii tani waxay kaa hor istaagaysaa inaad dantaada mashquul ku noqoto horumarna aad samayso 6 jooji inaad xaasid noqoto xaasidnimadu waa inaad xisaabiso waxyaabo qof kale Alle ku manaystay aadna uga xumaato intii aad adiga taada xisaabin lahayd 7 jooji caajis wahsi iyo inaad iska fadhido nafta oo aad siido firaaqo badan oo iskaga fadhido ku fikirto ama hawl ku taalay aad ka wahsato waxay horseedaan burbur iyo fasahaad ku mashquuli nafta shaqo iyo wax akhris iyo samaynta waxyaabo faa'iido ku leh 8 jooji cabsida inaad qalad samayso inaad wax samayso oo aad qalado waxay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba samayn guul kasta waxay leedahay fashil badan fashil kastana guul ayuu ku gaarsiiyaa ugu dambeyntii 9 jooji isku dayga inaad farxad iibsato ama aad dad kale ka raadiso haddii aadan ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo waxa aad haysato ma jiro cid kale oo farxad ku siin karta iyo waxyaabo qaali ah oo farxad ku keeni kara waa inaad deganaan iyo qanacsanaan u abuurtaa naftaada markaa ayaad cid kale farxad siin kartaa 10 jooji inaad ku noolaato xasuusta wixii aad soo martay wixii horay u dhacay waa taariikh weligood ma soo noqonayaan walwalka iyo xasuustooda waxay kaa qaadayaan farxadda maanta aad haysato 11 jooji inaad mashquul ku noqoto naftaada maskaxdaadana ku daaliso waxyaabahan macadahay maqurxoonahay yaa wax iga sheegay faan iyo status badan maalin kasta 100 sawir iska qaadin iyo wixii la mid ah dhammaan waxay daalinayaan maskaxda qofka waxayna ka luminayaan kalsoonida walaal qodobadan aan kor kuugu soo sheegay haddii ay ku cajabiyeen la wadaag walaalahaaga kale siina faafi waadna mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh